gudaha xarunta daryeelka maskaxda neerfaha iyo dhaqan celinta ee dhimir oo ku taala duleedka koonfur galbeed ee muqdisho. magacyada dhabta ah iyo badi muuqaalada bukaanadan waxaan u qarinay sababa iyaga u gaara iyo codsi maamulka xarunta nooga yimid. bukaanada ayaa soo maray marxalado kala duwan iyo xaalado qalafsan oo dhanka daryeelka xaaladahooda xanuunada dhimirka la xiriira, kuwaasoo qaarkood laga soo wareejiyey goobii ay hore ugu jireen kadib markii sida ay sheegeen loogu geystay xadgudubyo kala duwan. alxamdulilah markaan imaanaya adlugtan waa barsaneed, hadda waa fiicnaaday. intaan meeshaan oo dhan waa barsaneed, hadda alxamdulilah waa fiicnaaday. caafimaadkay maasha allah 100% hadda waxaan rajeynayaa inaan aad iyo aad u fiicanahay alxamdulilah. intooda badani waxay xarunta u joogaan dhaqan celin iyo weliba in laga tirtiramaankooda waxyaabihii ka soo gaaray isticmaalka maanduuriyaha iyo ku taraxtagiisa sida qaadka, sigaarka iyo wixii la mid ah. xoogaa waxaan ku yar xumaay balwadi iyo waxaas iyo mooryaanta iyo dadkaasaan raaci jiray. hadda alxamdulilah waan fiicnaaday, maskaxdeeda u degtay. ragga ayaa uga badan tira ahaan haweenka ku jira xaruntan, waxaana ragga qaarkood horey looga keenay dalal caalamka ka mid a sida Maraykanka iyo Holland. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هولنا كلمة ولا الحمد لله مارته معنا نيرفها مارته معنا هل كان مارته حوجات تكاتئ هاي وحنا ودم تكاتئ هاي الحمد لله رب العالمين مارته ورد لا أنت نوحوا أنا أفرت وانجري ورد يقولت مركا ورد لا أنت معنا إنك سو مركي سكولا ديجري سجال سحبيني متوان سحبيني ما سيحنجري ولكن بلود كم جو جريا أنا صرت صار عشية بمارته غير بلود أنا ساس بلود ساس وملي فاهم شو ما marka cishii anoo sariir tagay waxaan soo xajir 9 saac iskoolku ay jir suuxi 6 subaxnimo ku xajir marka xogaa barbaleemkaas ma aragtay neerfaha waxa ka ciiyo waxaas waa inta ma aragtay balooni ciyaar jir marka anoo saas u dhafarsanaa balooni ciyaar jir marka wixii neerfihii ma aragtay waxay noqdeen ma aragtay barbaleemkaas. inta lagu guda jiro qorshaha daryeelka dhimirkooda waxaa laga maarmaanaa inay sii joogaan xarunta ilaa inta laga xaqiijinayo in xaaladda caafimaadkoodu tahay mid suurtagal ka dhigi karta inay dib ugu laabtaan bulshada iyagoo bad qaba. xaaladaha qaar ayaa si qoto dheer u saameeyey nolosha bukaanadan, taasoo carqalad ku noqotay nolol maalmeedkooda, shaqadooda iyo xiriirkoodii bulsho. waxaa goobtani ka jira qayb u xil saaran isku xirka bukaanada iyo qoysaskooda si joogto ah si ay u bixiyaan talo ku saabsan hagaajinta xaaladahooda, sidoo kale kormeerka, hagaajinta xaaladaha maskaxda iyo xaqiijinta in dhammaan howlaha caafimaadku si sax ah u socdaan loona dhammaystiro wakhtigooda. cali maxamed muuse waa isku duwaha adeega dhimirka ee xaruntan. markii bukaanka noola keeno waan baarnaa shaybaara marsiinaa, wixii ka soo baxo cudurrada waan ka daaweynaa. dhiig karoo qabi karaa, sokoroo qabi karaa, waan ka daaweynaa. caafimaadkiisa guud waan la soconaa. sidoo kale dadaalada bogsiimada iyo dib u soo celinta dhimirka bukaanadan waxaa qayb muhiima ka qaadata daweynta ruuxiga iyo acmaasha diiniga. waxay helaan waxbarashada aasaasiga oo ay lafdhabar u yihiin duruusta diiniga iyo sunnaha nebiga, nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, salaada iyo ducooyinka oo ay u dheer yihiin xiisadaha dhaqaaqa jirka, jimicsiga, cunto iyo hooy. xasilooni darrada iyo loolanada muddada dheer ka jira Soomaaliya waxay saameyn ba'an ku yeesheen fayaqabka maskaxeed iyo midda nafsadeed qaar badan oo bulshada Soomaaliyeed ah. halbeeg ahaan xajmiga saamaynta xanuunada dhimirka ee dalkana waxaa la aaminsan yahay inay u badan yihiin qoysaska dakhligoodu hooseeyo. mid ka mid a 3 qof ee Soomaaliya waxaa saameeyey nooc ka mid a jirrooyinka dhimirka, sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO, taasoo ka dhigtay dalka in lagu daro liiska dalalka ugu sarreeya heerka xanuunada dhimirka ee caalamka.